Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka madaxda iyo howlwadeennada wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadan oo ka dhacday xarunta wasaaradda. Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaana soo dhaweeyay wasiirka oo uu sheegay in si niyad furnaan ay ula shaqeyn doonaan in aan si niyada iyo qalbi aan kugu soo dhaweyno in aan ku ballan qaadno anoo ku hadlayo magaca wasaaradda in aan si daahfurnaan ah walaaltinimo ah qalbi wanaag ah iyo firfircooni aan kugula shaqeyno waxaan rabnaa inaad ku soo dhawaatid aragtidaada oo aad ka leedahay wasaaradda inaad la timaadid in aragtidaada siyaasadeed iyo midaada horumarineed iyo wax oo dhan inaan kugula shaqeyno. wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in wasaaradda uu ku hagi doono siyaasad hufan isagoo kaashanaya madaxda kale iyo howlwadeennada wasaaradda. waxaan jecelahay inaan runtii u mahad celiyo ra'iisul wasaaraha wadanka iyo madaxweynaha oo isiyay fursad aan ku barto bahaha wadankan ka ugu muhiimsan ah oo ah bahda waxbarashada. runtii waxay tahay farxad weyn iyo nasiib inaan muxuu ahaa hogaamiyo siyaasadda waxbarashada wadankan. waa wax runtii qofka siyaasiga quud u ah waana fursad fiican inaan maantay bahdan ka mid noqdo. cidii siisay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin fursaddaas anna waxaan rajaynayaa kii aan ku ceeboobin inaan noqdo. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo gabagabadii hadlay ayaa muujiyay in wasaaradda waxbarashadu ay tahay meel laga jihin karo bulshada. waxa laga yaabaa in la isweydiiyo maxaa goodax loo geeyay waxbarashada wala wasaaradda kale oo ba maaragtay waa khabiir mufakir ah wax badan ka tari kara. ujeedada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ka lahaayeen waxa weeye wasaaradda waxbarashadu waa laf-dhabartii dalka. waxa ay najaha wareeriyay amni darrada keenaya waa jahli. waxa ay najaha wareeriyay shaqo abuurka iyo faqriga iyo xirfad la'aanta keenaya waa jahli. marka waa in waxbarashadii iyo fikirkii iyo maskaxdii aynu dhisnaa. aragtida iyo visionkaas qotada dheer ee fogaal aragga ah uu saakay noo soo bandhigay hadeer markaan sheekaysanay iyo ka hor iyo shalay guddiga arrimaha bulshada isugu nimidna waxa ay ka turjumaysaa in si weyn xukuumad iyo dawlad loogu soo jeedsaday wasaaradda waxbarashada. Waxiideen Macalin Cabdullaahi SNTV Muqdisho.